jecelahay in inta ku daro laba qodob oo aan ka hadlayo. qodobka koowaad waxa weeye waxa ka warqabtaan shalay toban war soo baxay ka soo baxay xisbiga wadani oo ku saabsan jaamacadda Timacadda University gobolka Gabiley. runtii jaamacadda Timacadda University waa jaamacad dawliya oo digreeto madaxweyne lagu furay. ardayda jaamacadda Timacadda University dhigataa waa arday reer Soomaaliland waxay xaq iyo xuquuq siman la leeyihiin oo la wadaagaan jaamacadaha dawliga ee dalka. waxay xaq u leeyihiin hadba wixii ay shaqo u soo baxa jaamacadaha dalka ardayda iyo aqoonyahanka dhigta hadday tahay shaqo ku meel gaadhay iyo hadday tahay shaqo rasmiyaba inay helaan. maamul ahaan dadweyne ahaan iyo dawlad ahaanba waajibna saaran weeyi oo dal ahaanina saaran ardayda aqoonyahanka da'yartaa in fursadaha soo baxa runtii looga faa'iideeyo. arrinta xisbiga wadani uu ka dhawaajiyey runtii maaha markii koobaad, markii hore ee diiwaangelinta ana arrintaasi way jirtay. aad baan uga xunnahay in xisbi dhan oo qaran uu arday aqoonyahana oo reer Soomaaliland xaq ay leeyihiin oo la wadaagaan ardayda jaamacadaha kale dalka inay runtii ka dagaal galaan oo ay geed gaaban iyo geed dheerba u fuulaan inaanay xaq uga helin. waa arrin aanu aad uga xunnahay. komishanka iyo xisbiyada kulmiye iyo u cidboon uga mahad celinaynaa doorkii hore si ay uga howlgaleen. doorkanna runtii dhawaaqa ka yimi xisbiga wadani waxaanu rajaynaynaa inaanay dhag u dhigin oo ardaydaasi xaqoodii ay helaan doorkii hore ay ku howlgaleen imikana ku howlgalaan oo ay kala wadaagaan waxa weeye jaamacadaha dalka dawliga ah. waanu ka xunnahay inuu xisbigu kala garan waayo meelaha ay xisbiyadu ku tartamayaan ee u baahan ay hadalka geliyaan iyo xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniinta reer Soomaaliland ay doonayaan inay weliba u hogaankooda qabtaan. wuxuun bayna tusinaysaa gobol ahaan halka ay ka taagayeen xisbiga wadani gobolka Gabiley. gudoomiyuhu wuxuu lahaa gacantaydu ku jirtaa gobolnimadu iyadoo aynu ka warqabno inuu intii uu kursiga fadhiyeyba uu kala masuugay isagoo taa ku hadlaya ay maantana waxa weeye ka dagaalamayaan arday aqoonyahan oo da'yartii mustaqbalka dalkii inay shaqo galaan muddada kooban ee hawsha doorashadu socoto. taasi waxaan uga tagaynaa dadweynaha gobolka Gabiley iyo dadweynaha reer Soomaaliland. arrinta labaad aan raacinaya waxa weeye arrinta kaadhadhka. shalay iyo daraad way ka warqabteen xubno ka mid ah dhalinyarta oo laba xubnooda inay kaadh soo bandhigeen. arrintaas runtii waa arrin qandumina, waa arrin gafa, waa arrin gaf sharci iyo gaf dastuuriyaba ah. kaadhadhka codayntu waxay ka mid yihiin tasiilaadka qofka xaqiisii dastuurigii u fudaydinaya. qofka iska leh oo qaatay isla markaana maalinta doorashada uu codaynayo xaq u leh inuu waajibkiisa dastuuriga guto cidda uu isagu jecel yahayna uga codeeyo. in laga ururiyo waxay ku imanaysaa in la xaday iyo in la abuse gareeyo ama lacag lagu bixiyay ama sifo kale loo maray. sifo kasta oo qofka muwaadinka kaadhkiisa uu xaq u lahaa gacantiisa lagaga saaraan waa sharci darro. dhalinyarta waxa weeye gacan adag baanu ku qabaanaa. arrin loo dul qaadan karo ma aha. cid kasta oo waxyaalaha noocaasa ku foogana waanu u digaynaa. aad iyo aad ayaanu runtii waxa weeye arrintaa gacan biro ugu qaban doonaa. dadweynahana waxaanu leenahay ka digtoonaada waxyaalaha noocaasa iyo dadka fikirkaa gaaban la wareegayo. qofka muwaadinkii xaqiisii dastuuriga u lahaa weeye kaadhkiisa codayntu ha ilaashado. berri buu madaxweynuhu doonayo dalkan inuu hogaamiyo uga codaynaya. baarlamaankiiba xildhibaanku rabo inuu qarankan u matoo uga codaynayaa. tii dambe golaha deegaanku rabaa xildhibaanku doono inuu uga codeeyo. waxaasoo dhan ayaa meesha ka baxaya haddii runtii arrintaa la carqaladeeyo. dadweynuhu ha ka foojignaadaan. dadka waxaa ku jirana waanu u diganaa. maamul ahaan iyo hay-adaha amniguba waxay u xil saareen inay gacan bira ku qabtaan.
ciddii waxaa ku arkasaan iyo dhaqdhaqaaqa noocaasna runtii inaad hay'adaha ammaanka aad u soo sheegtaan baanu idinka codsanaa. Wassalaamu calaykum.